kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo soo saaraya dikreeto wadnaha jari doonta mucaaradka kadib markii la ogaaday shakhsiga loo magacaabayo hay'adda Niza oo ah nin ay aad u necab yihiin siyaasiyiinta mucaaradka waxa ka dhalan kara magacaabistan ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah xog lama filaan ah oo laga helay hogaamiyaha ahlu sunna ee Sheekh Shaakir oo isku dhiibay maamulka Puntland kadib bixitaankoodii Gurceel haddaba maxaa ka jira in waqooyiga magaalada Gaalkacyo ay ku sugan yihiin Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir maamulka Puntland oo si kulul uga jawaabay eedeymo kaga yimid madaxweynaha maamulka Galmudug kuna saabsanaa inay taageero culus siiso kooxda ahlu sunna oo maalmahan shaki xoogan gelisay jiritaanka maamulka Qoorqoor muxuu Saciidani kaga jawaabay eedda Qoorqoor wararkan kalena waxa kamid ah ra'iisul wasaare Roble oo bilaabay qorshe uu kula xisaabtamayo mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee sida weyn u taageera madaxweyne Farmaajo xilli maanta uu si isdaba joog ah ula kulmay Umar Finish iyo wasiir Jamaal oo labadaba ah gacanta midig ee madaxweyne Farmaajo iyo Mareykanka oo hoos u dhigay awoodda militariga Soomaaliya kadib markii uu la barbar dhigay militariga Afghanistan sheegayna in wixii ka dhacay Afghanistan ay ka dhici karaan Soomaaliya qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah وانا habeen arbaco ah 27 bisha 10 Oktoobar sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanina wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyay saaxiibadiina idinka oo ku shargareynaya baraha bulshada mahadsanideen waxay noo soo socdo warar la xiriira xaaladda ee maamulka Galmudug iyo xiisadii Gurceel oo la soo gabagabeeyay iyada oo caawa bulsho badan oo hore uga barakacday magaaladaas ay ku hoyanayaan Gurceel sidoo kale xogo ku saabsan Sheekh Shaakir oo gaaray Gaalkacyo ayaa inoo soo socda balse aynu ka hormarino madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu waramayaa in uu soo saarayo wareegto si weyn uga nixin doonta siyaasiyiinta mucaaradka taasi oo la xiriirta magacaabista uu ku sameyn doono taliska hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee Niza loo yaqaano kadib markii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka heshiiyeen arinta muranka dhalisay ee hay'adda nabad sugidda kadib markii labada dhinac ay soo kala magacaabeen xubno ay si kumeel gaar ugu magacaabeen taliskaas walow markii dambe Yaasiin Faray oo dhinaca madaxtooyada ay soo magacawday loo daayay in uu sii hayo taliska Niza inta madaxweynaha uu ka soo magacaabayo shakhsi kale oo la isla ogol yahay isla markaana ra'iisul wasaaruhu uu wax ka og yahay amaba uu wax ka ogol yahay warar Twitterka aad loogu baahiyay ayaa waxay sheegayaan in Cabdiraxmaan Dheere oo ah wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada isla markaana kamid ah shakhsiyaadka sida weyn ee markaa ugu dhow madaxweynaha iyo sidoo kale Fahad Yaasiin taliyihii hore ee Niza ayaa loo magacaabaya ayay wararku aadka isku soo taraya sheegayaan Cabdiraxmaan Dheere waa shakhsi markaasi ay isku heeb yihiin taliyihii hore ee Niza Fahad Yaasiin waxaana suurtagal ah in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u magacaabo xilka taliyaha Niza sida wararkaas ay sheegayaan shakhsigan ayaa mucaaradku waxay u arkaan nin markaasi si weyn u taageersan madaxweyne Farmaajo isla markaana aan waxba ka bedelnayn taliyihii hore ee Niza Fahad Yaasiin maadaama uu si dhow ula shaqeeyo isla markaana uu ka mid yahay xubnihii la shaqeeyay Fahad Yaasiin muddadii 4 sano ahayd ee dalka sida dadban uu u maamulayay madaxweyne Farmaajo ayaan la ogeyn sida uu ra'iisul wasaaraha ugu qancin doono shakhsigan ay sida weyn u diidan yihiin mucaaradka balse waxa ay noqon doontaa laba arrin midood in ra'iisul wasaaruhu uu ka soo horjeestay inuu aqbalo iyo in markaa mucaaradku ay arintaasi qayladaan xoog leh ka muujiyaan ra'iisul wasaaraha ayaa iminka waxa aysan jirin wax xiriir ah oo si toos ah kala dhaxeeyo siyaasiyiinta mucaaradka maadaama mucaaradku ay si weyn kaga aamuseen isla markaana aysan ka hadlin soona hadal qaadin heshiiskii ay gaareen madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha ee ku saabsanaa arrimihii la isku hayay ee kiiska hay'adda nabad sugidda iyo kiiska kale ee Ikraan Tahliil Faarax madaxweynaha ayaana la filayaa in saacadaha iyo maalmaha soo aadan uu soo magacaabo taliyaha Niza ee cusub kaasi oo noqon doona mid ay wada ogol yihiin labada xafiis ee dalka ugu sareeya qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan markaana dhinacaas iyo galgaduud haddii aynu eegno maanta sida aad wararkeena hore ku daawateen ciidamada ahlu sunna way ka baxeen magaalada Gurceel waxaana caawa magaaladu ay tahay mid aad u nabdoon isla markaana aan laga baqdin qabin in dagaalo ay ka dhacaan shacab badan oo hore uga barakacay ayaa magaalada maanta si tartiib u soo galay iyaga oo qaarkood weli ay magaalada ka maqan yihiin kuwa oo qiimeynaya xaaladda isla markaana ka dharsugaya ilaa iyo dhowr maalmood inta ay wax iska bedelayaan wixii markaa ka dambeeyana
ay dib ugu soo laaban doonaan gudaha magaalada Gurceel oo 4 maalmood ee la soo dhaafay iyadu martigelinaysa dagaalo culculus oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka ah oo markaa taageeraya Galmudug iyo xoogga Ahlusunna wal Jamaaca. haddaba ciidankii saaka ka baxay magaalada Gurceel isla markaana uu hogaaminayo Sheekh Shaakir ayaa waxa la sheegay in ay gaareen deegaano markaasi dhaca waqooyiga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug halkaasi oo ay deegaan ahaan ka soo jeedaan qaarkood. waxaa la sheegay in qaar kale ay uga hareen baadiyaha magaalada oo markii hore ay ka yimaadeen. sidoo kale warar aan si rasmi ah loo xaqiijinaya sheegaya in Sheekh Shaakir hogaamiyaha maamulka waa hogaamiyaha ururka Ahlusunna uu isagu gaaray waqooyiga magaalada Gaalkacyo oo ah dhinaca magaaladaas ay ka maamusho Puntland. waxaa sidoo kale la sheegay in halkaasi uu ku sugnaa maalmihii la soo dhaafay Macalin Maxamuud oo la sheegay in ilaalo gaar ah la siiyay isla markaana halkaasi ay ku waardiyeynayeen. waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in Sheekh Shaakir halkaas maanta uu ugu tagay. sidaasi waxaa wariyaasha qaar ay ka soo xigteen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ee dalka Soomaaliyeed. maamulka Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa dhowaan waxa uu eedeyn culus u jeediyey maamulka Puntland iyo waliba sidoo kale siyaasiyiin kale oo uusan magacaabin kuwaas oo uu ku eedeeyay in ay iyagu taageero siinayaan ururka Ahlusunna wal Jamaaca isla markaana ay doonayaan in maamulkaas Galmudug ay caqabad ku noqdaan sida ay hadalka u dhigtay maamulka Galmudug. Puntland arintaasi si weyn ayay iyaduna u diiday maanta waa ayna ka hadashay iyada oo beenisay wararka sheegaya in maamulka Puntland uu taageero markaasi siiyo ciidamada hubeysan ee Ahlusunna wal Jamaaca oo maalmihii dambe iyagu ka dagaalamayay gudaha magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. hadalkan ayaana waxa uu yahay hadal markaasi si weyn u taabtay maamulka Puntland. gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Puntland ninka la yiraahdo Cabdiladiif Sanyare ayaa shir jiraa'id ku qabtay gudaha magaalada Gaalkacyo. waxa uu kaga hadlay arrimo markaasi ay ku eedeysay maamulka Galmudug iyo warar maalmihii la soo dhaafay aad loo hadalhayay. gudoomiyaha waxa uu shirkiisa jaraa'id gabi ahaanba uga hadlay xaaladaas iyo eedeymaha kaga imaanaya maamulka ay dariska yihiin. waxa uuna sheegay in arrintaasi ay tahay waxba kama jiraan isla markaana aysan jirin wax taageere ah oo ay maamulka Puntland siisay ciidamada Ahlusunna wal Jamaaca ee ka dagaalamayay magaalada Gurceel. waxa uu sheegay in wararkaasi ay yihiin warar aan sal iyo raad toona lahayn isla markaana aysan waxba ka jirin wararka ku saabsan in Puntland ay taageerayso. waxa uu sheegay in Puntland ay Galmudug kala shaqeynayso dagaalka lagula jiro al-shabaab. waxa uuna xusay in ay jiraan heshiisyo u dhaxeeya labada dhinac oo ku saabsan in la iska wada kaashado cid kasta oo carqalad ku noqon karta amniga ee labada maamul. waa hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan. warqaad TV ayaad naga daawanaysaan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kormeeray xarunta dawladda hoose ee Xamar iyo wasaaradda qorsheynta iyo dhiirigelinta iyo maalgashiga. kormeerka ujeedkiisu ahaa sidii loo dardargelin lahaa habsami u socodka adeega ay dawladda u hayso bulshada Soomaaliyeed ayuu warbixino kaga dhageystay mas'uuliyiinta xarumaha uu kormeeray. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud ayaa uga mahad celiyay ra'iisul wasaaraha kormeerkan isagoo la wadaagay hanaanka shaqo iyo horumarka ka socda gobolka Banaadir. wasiirka qorsheynta iyo markaasi dhiirigelinta maalgashiga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa isaguna waxa uu la kulmay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. waxa uuna sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee xarunta wasaaradda oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyay iyadoo xilligaasi ay ka soconayeen shaqooyin maalinle ah. ra'iisul wasaare Roble ayaa kula dardaarmay mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada xarumaha u booqday in la xoojiyo howlaha ee qaranka ay u hayaan xilligan uu dalka ku jiro doorashooyin si uusan gaabis ugu imaan adeegyada bulshada ka hesho isaga oo bogaadiyay dadaalada ay dalka ugu adeegayaan mas'uuliyiinta xarumaha markaa uu kormeeray. labadan mas'uul oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kala ah wasiirka qorsheynta iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxay ka mid yihiin mas'uuliyiinta sida weyn u taageersan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo hadda la xaliyay khilaafkii u dhaxeeyay madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha. ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa rumaysan in waxa ka dhacay Afghanistan ay wajihi karto Soomaaliya sida ay jariirada afka dheer ee New York Times ka soo xigatay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda Washington.
waayo aragnimada Afghanistan waxay inoo sheegaysaa in guusha aysan ku imaan karin dib u qaabaynta dowlad ama bulsho iyo howlgalka Soomaaliya uu waqtiga nooga lumay carqaladda al-shabaab ayay sheegeen. gudaha Afghanistan kadib 20 sano oo dagaal bilaayin dollar ku baxeen askarta Ameerikaanka ayaa ka baxay dalkaas, taas oo kooxda Taliban dib markaa ugu celisay awoodda. madaxdii dalkaas waxay ka carareen shacabkii doortay. muddadaas Afghanistan colaadda ka go'nayd Mareykanka waxa uu ka sameynayay dalkaas waxa uu haatan ka fuliyo Soomaaliya oo ugu muhiimsan yihiin duqeymo dhanka cirka ah, taageerada dowladda iyo mashruucyo kale. dadka naqdiya Mareykanka ayaa rumaysan in al-shabaab ay haatan diiradda saarayso inay awoodeeda kusii ballaariso geeska Afrika, taas oo khatar ku ah danaha ee Ameerika. Captain Robert oo haatan ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ayaa sheegay haddii al-shabaab ay haatan halis geliso Mareykanka natiijo ka dhalan karta joogitaankeena gudaha waddankaas. al-shabaab ayaa haatan weeraro ka fulisa meelo ka baxsan Soomaaliya. dowlad dahsoon ayay noqdeen, saldhigyo iyo maxkamado ayay hirgeliyeen. Mareykanka ayaa aaminsan in 2020 ay kooxdu urursatay dakhli dhan 100 milyan oo dollarka Mareykanka ah. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan hor la mid ah intaynu dib ugu kulmi doono. nabadgelyo.